حسين لواتن بشي كويتمار بداية كيس مرمي بالإسناء هذا الكيسي وهو صوت سيوناس من المعاون عبد من العلاج بارك الله العلاجي حفيظ كحلالات سوى حفيظ كحلالات الشيء يدي إنه حرتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال ميل كسو جوجتان سو دوادا وافر إلى تنك نوفمبر سنة كلابكم لبعتني شن ما أنت واحد سو جبجبي جرمقل كي لبعض محكمة دينتا دنبيل وهذا المحمود ديريو مجال قال كعيا كو غلطي مرحوم صابرين سيلان عبد الله ويس runtii go'aan dadweynaha reer gaalkacyo oo dhan ay bogaadiyeen ayaa ka soo baxay halkaas waxaan rabaa inaan barnaamijkan uga hadlo laba qodob waa qodobka muhiimka iyo aniga oo si gaar ah ii quseeyay maanta dacwadii kaas oo ah been abuurkii iga sameeyay qareenkii difaacayay hodan maxamuud diiriye qareenkaas oo xilligan fuusta weyn aniga igu riixay igana been abuurtay iyo gabadhii u doodaysay marxuumad Saabiriin ee xeeryaaliyaha ahayd oo iga difaacday qareenkaasi waxa ayaan dara ah nina kabtiisa tolaysid oo adiga ka fantaada tolaya saacado ka hor maantay markii dacwadu soo dhamaatay waxaan uga doodayay Facebook qareenka iyadoo la handaday oo maxkamadda lagu handaday baan waxaan amar siiyay dadweynihii maxkamadda daawanayay gaar ahaan eheladiisa Saabiriin anigoo lahaa war u hogaansama shuruucda maxkamadaha ninkan qareenka xaq buu u leeyahay inuu difaaco hodan waa tan fariimihii aan ku difaacay la arkay oo aan soo jeediyo in qareenkii u doodayay hodan annagoo daawanayna maxkamadda dhexdeeda aan ku aragnay in la handadayo dadku horta waa inay sharciga bartaan qareenka u doodayo hodan wuxuu ilaalinayaa dheelitirka maxkamadda haddii qof dambi lagu helo ama la eedeeyo oo maxkamad la aado waa khasab qofku sharciga wuxuu u dhigayaa inuu helo qof u dooda qareenkuna shaqadiisu haystay ma jirto sabab qareenka hodan u doodayo loo dhibaateeyo loo aado mana dhacayso maxkamadaha duridu iyo ay cadaaladuba in xataa qof la og yahay inuu qof dilay uu qareen la'aan noqdo khasab qareen markasta waa loo qaban lahaa wiilka u doodayay hodanna wuxuu ka mid ahaa qareenmadii loo qaban lahaa hodan sharciga waa inay dadku bartaan macnaheedu ma ahan haddii qareenku u doodayo hodan uu difaacay inuu duudsiinayo kiiska macnaheedu waxa weeye in dheelatirka sharciga uu qayb ka yahay waxaan ka digayaa oo aan halkan fariin uga dirayaa shakhsiyaadka qareenka handaday inay ka waantoobaan waana in qareenkaas ammaankiisa aad loo ilaaliyo bataqaanaayay aadna loola socdo runtii waxaan bogaadinayaa lawyarada ama gabadha xeeryaaliyaha ee hodan aan dhahay muxubbo oo iga difaacday been abuurkaas cadaysayna meelaha ay xogta ka heshay waxaan halkan ka cadeynayaa muxubbo ma garanaya aniga wajina ma aqaani teleefankeedana ma hayo dadkaas inay la mid tahay gabadhan kiiskeeda inuu aniga qabiil ahaan igu soo rogo ninkaas ilma adeeriyin gabadhan ama adeeru ama awow aan noqonaya ama adeeran u ahay gabadhan ninkaas ilma adeeriyiin qabiil ba isla yihiin qaabkaas camal uu rabaa ninkaana gabadhan la wadaagay gabadhan muxubba waa gabadh ma jeerteen reer maxamuud aniga iyo Saabiriin inaan qaraabanahay waa sax dad Umar Maxamuud reer mahada islaanahay ma jeerteen Umar Maxamuud reer mahada islaanahay laakiin si wallahi oo billahi Saabiriin Soomaalidaas ila mid odaygii lagu gubay wala weyn baan u hadlayay hooyadii duduble ee salaabaanku ku dileen baan ka hadlayay wiilkii dhakhtarka ay gurceel wiilkii ma taqaan ganacsaday gurceel lagu dilay baan ka hadlayay anigu qof kasta oo dulman baan garab istaagaa qabiilna ma aqaan reer hebelna ma aqaan gabadhaasna Soomaali baan ula dhaxeeya cadaaladeeda haddaan ogaan lahaa Saabiriin inay xaaladaas ku jirtana wallahi oo billahi oo tallay waan badbaadin lahaa ma sadicin anigu iska dayna ogaadee walaalaheedii ilmaadeerteeda ogaan waayay aniga ma ogaan karin markii waddankana waan ka maqnaa haddaba waa tana hodan muxubbo oo kiiskaas markaasi iga difaacaysa waa tana 434 aan ku soo eedeena cadeymaheedina maxkamadda ayadoo muuqaal ah ayadoo document warqad ah baan la wadaagnay waxaan ka filaynaa maanta cadeymihii aan maxkamadda hor keenay inuu ka difaaco
balse taasi maysan dhicin. wuxuu sheegay qareenka kow maalintii horena maxkamadda waan u sheegnay in qof uu ku tilmaamay hebelow caduun I think inay saa ahayd inuu maxkamadda la soo wadaagay muuqaalo xafiiska xiraarinta muuqaalo la soo wadaagay. taasi ayaduna waa khalad uu qareenku galay. xafiiska xiraarintu waa xafiis dawli ah dhibana matala laamaha uu la shaqeeyo la yaqaano meesha uu caddayn ka keensanayana ay tahay meel ku qoran eedda aan la wadaagnay oo leh guungaar iyo CID. qareenku wuxuu sheegay madax gudoomiye aad iyo aad haddaba waxaan rabaa inaan xog yar idin siiyo ninkan qareenka anigana waa idiin sheegay maalintiina waa sii saadaalinaya marqaati waxaa ka tinina idin idin ninkaas wuxuu aruursanayaa warqado dhakhtar wuxuu rabaa inuu maxkamadda la tago wuxuu rabaa inay dhahay way waalantahay gabadha intiina wuu keenay maanta maxkamadda la wadaagay. kiiskan anigu waxaan u baaray si cilmi ahaan aqoon ahaan u baaray qareenka difaacayaan inuu hodan laba mid uu leeyahay inuu maxkamadda imaado oo uu dhaho hodan way waalnayd ha laga xafiifiyo xukunka laakiin si hodan si kale ay ku badbaadi karto ma jirin. arrin kale way jirtay arrinta muuqaalada caqabada ugu weyn ee 99% kiiska hodan waxa cusliyay dee muuqaalada ay gacanteeda ku duubtay. muuqaaladaasna qareenku si uu wajahayo sharciyan way adag tahay baan idin muuqaaladii markii hal angal uu heli karay muuqaalada inuu beeniyo muuqaalada suu u beeniyo buu wuxuu ka dhigay muuqaalo aniga aan abuuray oo aan u diray muxubbo iyo laamihii dambi baarista aan u diray buu ka dhigay si muuqaaladii gabadhu ay gacanteeda ku duubtay uu u inkiro hadhowna u dhaho gabadhan way waalnayd iyadiina ay tiri muuqaaladan ma duubin qaab noocaas u rabay wayna ka fashilantay ummadda Soomaaliyeedna deeqa xalaal barqacad baa lagu taa way ogaayeen. laba mid baan ay furan tahay inaan cafiyo inaan maxkamad la tago xaq baan u leeyahay inaan isdifaaco xaq baan u leeyahay inaan mataqaanay isbari yeelo haddaan lagu sheegin waa la is-sheelamay haddii lagu sheelana waa la is-sheegamay xaq baan u leeyahay idinku bal qaybta hoos aragtida igula wadaaga ninkan qareenka maanta ana u difaacay ana hadda u dakanaysan isaga u dakanaysan isaga waxa leeyahay maxaa ninkan ma taqaanay u difaacaysa oo aad u lahayd war ninkaas laga dhaco maxaad u lahayd baa la igu haystaa qaybta hoos aragtida igula wadaaga Soomaaliya ninkaas ma qabsanaa oo kiiskan maxkamad ma la fuulnaa mise ma taqaanay waan cafinaa anagu dadkan u shaqeynaa bulshada waxay soo jeediso baan anaguna ku shaqeynaa xaq baan u leeyahay inaan caddaynta itus goortan muuqaalada aan isku dirnaa aniga iyo muxubbo aniga inaad kiis gelisid maanta oo niman tolka iyo nuuc jibraahiila oo gabadhooda la dareen wixii de ma taqaanay dulmiga ka soo jeedo meeshada in aniga igu dirtido oo aad jambal noogu tuurtido aniga hadhow ma taqaanay aan dhibaato kale kulmo ma rabo xaq baan u leeyahay isdifaaco waxaan halkan ka cadeynaya oo Soomaalida iyo Islaamkii bulshadaas u cadeynaya inaysan jirin muuqaalo aniga intaan diyaariyay aan la wadaagay muxubbo inaysan jirin muuqaalo aan la wadaagay laamaha dambi baarista Soomaalidaasaan ula sinaa muuqaalada aan Telegramka soo dhigayna waxay ahaayeen muuqaaladii ay muxubbo ka shiday kaamirada waxaan inta ahayn ma soo dhigin saabireen markay si naf baxayso saabireen marka la jirdiliyo intaas waxa laga shiday projectorka marka la shiday iyo muuqaalada xilligan soo dhigayna hala baaro saacada u dhaxaysa muuqaalada xilligan soo dhigay baa dambaysa sababu marka ii dhaho habeennimadii buu ninkan muuqaalada wuxuu u sii diray muxubbo ma lahan qareenkaas wuxuu waayay wuxuu gabadhaas ku difaaco inuu kiiskaas duudsiyo isagu rabay inuu qareennimadiisa ma taqaanay banaankaas la maro way ahayd laakiin si inuu qof aan meesha joogin dambi dhalada ka saaro oo aniga nimanka nuuc jibraahiil tolka aniga madaxa